inkastoo aanu si dhab ah u cadeyn mowqifkiisa siyaasiga ah haddana waxaa laga arki karaa foolkiisa iyo fursadaha siyaasadeed ee uu doonayay inuu abuuro. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo 14 sano ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland laba jeerna loo doortay jagadan ayaa hadda u dhabarjeediyay xisbigiisa Kulmiye oo muddo dheer uu ka tirsanaa badiyo buurna uu kala soo baxay sida uu hore u sheegay. hadal jeedintii Saylici muddo ay ahayd xashaashaq taala miisaska siyaasadda ee Somaliland iyadoo ka qato dheer kana miisaan weyn inta uu shalay ka hadlay. dad badan ayaa filayay in uu dibadda wada keeno sida ay siyaasadda ugu kala irdhoobeen isaga iyo madaxweyne Biixi oo 7 sano ay ku fadhiyaan laba kursi oo isdaba yaala. waxaynu eegaynaa halka ay iska seegeen Saylici iyo Muuse waxa keenay waqtigan in mas'uul miisaankaasi leh oo dhabarka u jeediyay xisbigiisii qorshaha rasmiga ah ee madaxweyne Saylici iyo masiirkiisa siyaasiga ah. dadka yaqaana waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay nin afgaaban iyo oday shararadiisa siyaasadeed aanay badnayn hogaamiye qalinka warqadda duldhiga laakiin aan si wacan ugu muujin khadka iyo tusmooyin kale. isaga Saylici iyo Muuse waxa uu bilaabmay sanadkii 2020 markaas oo madaxweyne Muuse uu soo dhigay qorshe uu ku doonayo inuu ku bedelo murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga Kulmiye si aanay isaga iyo Saylici mar kale ugu rafiiqin ololaha doorashada madaxtooyada. si qorshahaasi u hirgalana waxa ku xidhnaa laba qodob: kow, inuu keeno siyaasi ay isku deegaan yihiin madaxweyne Saylici, iyo laba, inuu ka qaado booska ku-xigeenka afraad ee xisbiga Kulmiye oo markaasi uu Saylici ku fadhiyay dagaal iyo khilaaf ba'an kadib oo ka dhaxdhacay Saylici iyo xisbiga Kulmiye dhexdiisa. isku daygaasi waa uu guuleystay ugu dambeynna bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 Cabdiraxmaan Saylici waxa uu kursiga afraad ee xisbiga Kulmiye uga tanaasulay wasiir Maxamuud Sacad Saajin, taas oo ka dhignayd in Saajin uu yahay musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga Kulmiye marka la gaaro doorashada madaxtooyada. Saylici waxa uu sidaas ku lumiyay kursigiisa uu ku lahaa xisbiga oo sidoo kale uu ahaa salaan uu mar afraad ka tiigsado inuu noqdo musharax madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaas. maalintaasi uu tanaasulay Saylici waxa uu madaxtooyada ka jeediyay khudbad dheer oo isugu jirtay garnaqsi iyo xasuusta tagta hore. wuxuu ka sheekeeyay waayihii uu la soo maray xisbigiisa isagoo oo si maldahan u weeraray madaxweyne Biixi iyo madaxda kale ee xisbigiisa kuna naqsaday in la kala reebi waayay isaga iyo wasiir Saajin. tan iyo maalintaasi laga soo bilaabo Saylici iyo Muuse waxay ahaayeen laba nin oo dooni wada saaran dhanna aan u wada socon. ururka barwaaqo maxaa ugu jira madaxweyne Saylici? Cabdiraxmaan Saylici oo qorshihiisu ahaa inuu mucaaradka gacan saar toos ah la yeesho ayaa fursad kale oo ka sii muhiimsan u arkay inuu gacan saar la yeesho ururada siyaasadda ee Somaliland, gaar ahaan kuwa ay hogaamiyaan siyaasiyiinta ay isku deegaanka yihiin, si loo helo xisbi qaran oo ay hogaankiisa hayaan siyaasiyiinta gobolka Awdal, iyo in Saylici laftigiisa uu helo garoon siyaasadeed oo uu ku dhex ciyaari karo. ururka barwaaqo oo hore u hogaamin jiray Dr. Maxamed Gaboose dhawaanna hogaankiisa ay la wareegeen siyaasiyiin ay xulafo yihiin madaxweyne Saylici iyo garab kale oo ka soo firdhaday ururka Hillaac ayuu la sameeyay gacan saar una arkay inuu yahay ka ugu muhiimsan ee uu ku biiri karo. waxa uu noqday gabaad siyaasadeed oo mucaaradka isbedel doonka ah ka tiigsan karo maadaama uu yahay madaxweyne ku-xigeen qaran oo mucaaradka aanu si toos ah ugu xuubsiiban karin. xisbigiisii Kulmiye iyo xeradiisiina ay waayo hore kala huleeleen. ururka barwaaqo ayaa habeenkii 19 bishan Oktoobar waxa uu garab ka saaray musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciro. tan waxay ahayd tallaabo kale oo xoojinaysa in madaxweyne Saylici uu codka madaxweynaha ku dhisayo musharax Ciro maadaama oo madaxda ururkiisu ay taageereen. taytayba Saylici waxba kuma yeelan doono doorkan natiijo kasta oo ay gaaraan xisbiga Kulmiye iyo murashaxiintiisu. waxaan haddii uu xaalku sidan sii ahaado uu noqonayaa tiir weyn oo kale oo ka baxay xisbiga Kulmiye.